Boston FX aad iyo aad waa mahadsantihiin kusoo dhawaada muuqaalkeenii shanaad ee taxanaynii barashada xirfadda suuqa forex-ka qaybteedii shanaad intaan cashirka u gudbin marka hore waxaa idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aa ugu qayb qaadateen janaalka inaad korisiin janaalkan janaalkiina waaye aad iyo aad aa idin mahadcelinayaa idinku hambalyeynaya inaad gaarno 1k waxaan rajeynaya intaas iyo inka badan inaad sii gaarno hadduu alla idmo insha allah haddii aan hore usii gudagalno cashirkeenii shanaad waxaan ku baran doonaa noocyada traderska علشان dadka suuqa ka shaqeeyo meeqa noocay kala yihiin meeqa dadaa ka shaqeyso outline-ka ama qodobada ka mid ah waa shantan qodob afar qodob iyo gunaanubkii scalperska waxaa la dhaho day traderska waxaa la dhaho swing traderska waxaa la dhaho position traderska intaan ay u kala baxaan traderska علشان dadka xirfadlayaasha oo suuqan ka shaqeysto afartan nooc ayay u kala shaqeystaan haddii aan hore usii socono there are four main different علشان afar noocood oo waxaa jiro oo traderska oo ah dadka xirfadahan leh afar nooc waa kuwa scalpers day trader swing trader iyo position trader afartaas alla marka afartaas ayaa mid mid usii sharxi doonaa scalpers maxaa la scalpers waxaa waa ayaka traderska waa nooc ka mid ah dadka xirfadayaasha oo suuqan trade gareeyo iyagu nooc waxay u trade gareeyaan scalpers ama shiishyahanne ah maxaa yeelay iyaga suuqa meel yaray ka galayaan meel dhoway ka baxayaan tusaaloo kale hadda sawirkan scalpers waxaa waa suuq intuu ka galay meeshaan ugu baxay maxaa yeelay isaga hadafkiisa ma ahan maxaa la inuu trade-ka maalin hayo inuu profit fiican helo ma aha wuxuu sameynaya isaga profit bib yar uu raadinaa 2 bib 3 bib 4 bib camal uu raadinaa markaasuu wuxuu sameynaa lot fiican uu saarana marka waxaa la dhahaa scalperska waxaa lagu dhahay holding into for few seconds few minutes at the most عشان daqiiqado ama minute bis oo hayna hadafkiisana waxaa waaye inuu bib yar helo oo ah si bib yar wuxuu sameynaa marka lot fiican saara intuu ka galaa intuu ka baxaa intuu kasoo galaa intuu ka baxaa maxaa yeelay hadafkiisa ma aha inuu trade-kan cabaar haayo shaqadiisa ma kaas marka waxaa la waa scalpers ama shiishyahanada hadafkoodana waxaa waaye bib yar ay rabaan oo ah in maxaa la suuqa meel yar inay ka galaan meel yarna uga baxaan si maxaa la lot fiican u saartaan qolada xigta waxaa la lahaa day traderska waxaa waaye waa dad ka mid ah noocyada traderska iyagana hadafkooda waxaa waaye subaxii imaanayaan suuqa ama sessionka mid ka mid ah imaanayaan maalintii oo dhan 2 trade ama hal trade uu qaadanaya isaga maxaa yeelay ma rabo inuu over trade noqdo oo trade badan qaato ma rabo hadafkiisa waxaa waa 2 ilaa iyo hal trade uu qaadanaa marmar qaar 3 trade aa laga yaabaa hadduu hal trade uu ku saara oo 2 faa'iido almost suuqaas uu iskaga baxaa maalintaas booliis kaloo iska qabsanaa kaasna maxaa la dhahaa waa day traderska waxaa ka mid ah tani oo kale day traders wixii oo kale waa macnaa saddexdiis wax marka fadhiisto ilaa iyo lixdii oo kale haddaa joogo 2 trade haddaa helo ama hal trade almost maalintaas suuqaas dhan meesha uu baxaa haddii aa khasaaro iyo haddaa faa'iidaba almost kaasaa marka waxaa la dhahaa day traderska qolada kale xigta waxaa la lahaa swing traderskan iyagu waxay u dhow yihiin day traderska laakiin waxay uga duwan yihiin qolooyinka swing traderska la laayo suuqa waxay haynayaan maalmay haynayaan tusaaloo kale suuqan isliin oo trade-kan galay isliin markuu galay wuxuu haynaa isliin talaadadii arbacadii khamiistoo kale waxaa laga yaabaa inuu ka baxo ama arbacadii oo kale waxaa laga yaabaa inuu trade marka hadafkiisa isaga waxaa waaye inuu suuqan cabaar ku dhigo sawirka idinka muuqato intoo kale gala meelahan oo kale hadduu faa'iido helo maka baxaayo wuu haynaa intoo kale hadduu sii maraayo maka baxaayo faa'iidadiis ma qaadana wuu haynaa ilaa intuu ka tago marmarka waxaa laga yaabaa inuu halkaas iska sii haysto markaas waxaa la lahaa swing traderska waxay hayaan ayaga maalmo qolada ugu dambeysa marka waxaa la lahaa waa position traderska waxaa waaye iyagu waxay haynayaan traderkan waqti dheer ay haysanayaan waxaa laga yaabaa inay haystaan bilooyin inay hayaan waxaa laga yaabaa inay haystaan sanad oo kale inay hayaan inta badan position traderska waxaa ah kambaniyada waaweynka oo kale ayaa waxay ilaa iyo meelahaas waxay iska haynayaan 2 bil 3 bil 5 bil 6 bil sanad ku dhawaad ay haynayaan marka qoladaas maxaa la lahaa position traderska tradersyada noocaas ay kala yihiin the best one-ka waxaa waa ama day traders noqo ama maxaa la scalpers noqo
So day trade-ka wuxuu ku fiican yahay inaad suuqa subaxii aa imaatid hal trade ama 2 trade aa qaadani and then waxaa sameynaya howlaha kale iska qabsanaya. So marka cashirkeenii shanaad wuxuu noogu egyahay. Waxaan rajeynayaa inaad wada fahanteen koorsiga sida u socotana haddii waxyaalo kale aad jeceshihiin waa soo sheegin kartiin hadduu Alla idmo. Aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa. Fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirtid oo subscribe, like iyo share iyo comment aa nagu saacid. Haddii aad tahayna saaxiib hore noola joogane waxaan kaa codsanaynaa in aad sii share garaysid saaxiibadaada u baahan aad la sii wadaagtid. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.